Yeah. Looking over walking. Bashal Wanoan. Yeah. dalkayga macdan baa ka buuxdo wabiyada burqana iyo durdurka iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب غالية ميل كستو الدنيا ذا كشوكتان وولالكي سلوبايد له وقت جاي وايو هيدين وعنادان أصحابي مر لبادي مسد حد كسر دوادة برنامج كني جدي سعد كذا قالها الصومالية برنامج كصوت حنا ينوها قيتي سد حد رنتي وهالكن وحن دنيا إن نقوم هالعليو برنامج كقيتي سهرة أنت قف دعوتي انت قف كومنتيada quruxda badan ee dhiirigelinta leh ka soo bixisay inta qof ee like gareysay insha Allah waxaan rajeynayaa inta maanta aan haysto subscribe taan haysto aad isiiseen in ka badan insha Allah inaad gaarsiin doontaan ana aan dadaali doono hadii Ilaahay ka dhigo barnaamijkeeni maanta waxa uu ka bilaabanayaa qaybtiisii saddexaad in xorriyadii kadib dawladii Soomaaliyeed ee dhalatay waxay dhaxashay dal isagu sabool ah oo runtii dhaqaalihiisu aad u hooseeyo oo nolol maalmeedka ku kooban miisaaniyadii dawladeed oo runtii iyaduna naaqus ahayd miisaaniyadii ganacsiga dibadda oo sidoo kalena naaqus ahayd iyo laba isticmaar runtii xilliga jiray oo kala ahaa Talyaaniga iyo Ingiriiska waxa sugaysay runtii dawladda xilliga jirtay dad runtii 70 sano shacab 70 sano runtii isticmaar ku jiray oo u baahan horumar dhaqaale oo degdeg ah oo homooyaan hadal maqleynba intaas waxa ka sii daran waxa jirtay in ay dadkii Soomaaliyeed ee xilliga jooga ay dalbanayeen qadiyadii Soomaaliyeed dadkuna ay u jibeysnaayeen oo ay dalbanayeen in la mideeyo la isuna keeno shanta Soomaaliyeed oo hal calan la hoos geeyo baadigobka Soomaali weyn waxa ay sababtay in hantidii yareed ee la heli karayay loo leexiyo intii ugu badnayd dhinaca gaashaandhiga iyo taageerida dhaqdhaqaaqyada gobonimo doonka waxa dagaal lala galay Itoobiya sanadii 1964 waxa la taageeray dagaalo jabhadeed oo runtii ka soo horjeeday Itoobiya Kenya iyo Faransa muuqaalka dhaqaalaha ama heerka dhaqaalaha xilligaas uu marayay waxaan ku qiyaas qaadanaynaa tusaalayaashan halkan bixin doona ama numberskan aan halkan ku sheegi doono December 1961 kii lacagta suuqa ku jirta waxay ahayd Somali shilling 80 milyan oo u dhiganta 12.4 milyan oo dollar dakhliga dawladda xilligaas waxa uu ahaa Somali shilling 164 oo u dhiganta 23 milyan oo dollar wax dhoofinta xilliga waxay ahayd 176 oo Somali shilling ah oo u dhiganta 25 milyan oo dollar maanta 20 milyan waxa haysta ganacsatada jeebleyda ah runtii xilligaas lacag yari kaliya ma ahayn dhibaatadu ee waxa jirtay aqoon yari oo waxa dhif iyo naadir ahaa in la helo shakhsi ama shakhsiyaad qora warqad dhowr sadar ah oo ka kooban Talyaani ama Ingiliish ah markaas ayaad mahadinaysaa runtii qorista af Soomaaliga sida ka muuqata miisaaniyada dawladdu ma dheelitirna oo waxa kabi jiray labada quwadood aan soo sheegay ee tahaa Talyaaniga iyo Ingiriiska Talyaanigu waxa uu bixiyay 22.4 milyan oo Somali shilling ah oo u dhiganta 3 milyan oo dollar Ingiriiskuna waxa uu bixiyay 2 sano oo kaliya sanadii 1961 oo uu bixiyay 16.3 milyan oo u dhiganta 2.3 milyan oo dollar iyo sanadii 1962 oo uu bixiyay 15 milyan oo u dhiganta 2.1 milyan oo dollar deeqda Ingiriisku waxay istaagtay markii ay Soomaaliya ka goosatay xiriirkii diblomaasiyadeed Ingiriiska taasoo ay Soomaaliya ka carootay sida uu Ingiriisku u duudsiiyay xaqa Soomaalida reer NFD miisaaniyada dawladdu ma dheelitirna sidaan kor ku soo xusayba waxa kabi jiray labada quwadood oo runtii 80% dakhliga dawladdu waxa uu ka iman jiray cashuuraha furdooyinka iyo dawladda oo kari weyday ama awoodi weyday inay ila dakhli oo kala sameeyso
daawade waad mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan haddii uu ku cajabiyey fadlan like saar una sii shargaree asxaabta channelkan walaal noo subscribe garee haddii aad nagu soo biirtid ku soo biiristaadu waxay ii tahay dhiirigelintayda waxaana soo badin doonaa runtii barnaamijyo runtii bulshada faa'iido u leh sida iyo nabad yeah dhulkeena waa barwaaqe bashaal wacnawaan